bismillahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada shabakada Sumcoders casharkan waxaan ku qaadanaynaa reactive properties ama si aad u taqaanid reactive properties su'aasha is weydiinaysa waxa weeye macluumaadkan aynu soo celcelinay ama componentigan course la dhaho ee aynu initialize gareynay maxay u kala duwanaan waayeen xogta la soo bandhigayo taas ayaynu sameyn doonaa inagoo ka faa'iideysanaa reactive properties waxay hayaan macluumaadka component walba courses waa component course waa component mid walba wuxuu leeyahay object properties oo xogta u haysa waana waxa ay ku kala duwanaanayaan component walba marka dib loo isticmaalo ee la soo bandhigo tusaale hadaynu hadda soo qaadano anchor tag aynu naqaanay hadda meel aadi maayaan oo waxa ka maqan attribute la dhaho href ama hyperreference labadan maxay ku kala duwanaanayaan meesha aadiyaan waxay ku kala duwanaanayaan waa inaad ku dartaa attribute soo kan waxaan ku daranaa attribute la hyperreference kabacdi waxaan leenahay waxa aadaa https sumcoders.com sidoo kale google kan waxaan ku daranaa attribute la dhaho hyperreference oo aan leenahay waxa aadaa google markaan awl hore laba anchor ay ahaayeen ama laba mareeg ay ahaayeen wax ay ku kala duwanaayeen meesha aadiyaan ma jirin laakiin markaynu ku darnay attribute href la dhaho wuxuu kani aadi doonaa Sumcoders kan wuxuu aadi doonaa Google inagoo taa ka faa'iideysanayna ayaynu reactive components kan waxaan ku daranaa attribute la dhaho title kabacdina waxaanu sheegaynaa magaca course oo kale soo waxaan leenahay reactive kaliya maaha sida html oo kale in attribute ka ku darsan kartaa ay kooban yihiin laakiin reactive anything oo aynu u baas kareyno attribute ay noqonayaan attribute-na wax kale maahe macluumaad dheeraad ah ayay waxay siisaa elementska ama xog dheeraad ah soo hadaynu course-kan ku darnay attribute la title macnaheedu maaha inuu taa ku ekaan karno waxaan raacin karnaa oo kale price baan raacin karnaa anything oo aad raacisid attribute ay noqonayaan soo kuwan kala raacin maayo laakiin kana raacinaya attribute-kan meesha ku haysano sidee ugu baas kareyn karnaa ama ugu gudbin karnaa component-geeni waxaan ugu gudbin karnaa inagoo isticmaalna properties oo hadaynu eegno waxa ku jira properties aynu console-ka eegno object-geeni ugu horeysay waxay haysaa properties title la dhaho kuwan kalena waa maran yihiin marka kan kale hadaan raaciyo tusaale ahaan price oo kale price-ka ayaa soo baxaya marka saas oo kale ayay u shaqeynayaan sidee baan marka u soo bandhigi karnaa attribute-ka aynu u soo baas gareynay component-geena waxaan u soo bandhigi karnaa qaabab kala duwan casharadeenna dambe waxaan ku dhigan doonaa structuring sida loo sameeyo laakiin had simple waxaanu leenahay properties.title haddii kuwan kale ay title leeyihiin uu soo baxayaan soo hadaynu save dhahno kan uu isbedelay wuxuu noqday react.js basics kuwii kalena title-koodii empty ayuu noqday sidaa darteed si uusan style sheet-kan u xumaan marka koowaad waxaan sameynaynaa css-kana tegaynaa horta width go-aan baynu sameynaynaa 40% baynu ka dhigaynaa width-ka safe ayaan leenahay hadda okay aynu noqday width-koodii sidoo kale height ayaan ku dari karnaa sidoo kale waxaan sameynaysaa conditional rendering ayaa sameynaysaa waxa leedahay haddii title aad heshid title-ka soo bandhig ternary operators-ki haddii kalena untitled course oo kale ku qor laakiin taasoo kale waxaa kaa fududeynaysa inaad sidan tiraahdo haddaad title soo heshid title-ka soo bandhig haddii kalena waxaad tirahdaa dhammaantood intii kale oo dhan waxay noqdeen untitled course marka laga reeba kaa haddaynu kan labaadna title-kiisa usoo baas kareyno javascript basics kan wuxuu noqday javascript basics laakiin saddexdii kale waxay noqdeen untitled sababtoo ah prop title la dhaho meesha kuma hayno inagoo taa ka faa'iideysanaynaa hadda course-keeni waxaynu usoo baas kareynay attribute la dhaho title kuwan horta dhammaantood aynu title ku darsano labadan oo kale waxaan ku darsanaa title tusaale ahaan view basics kana ha ahaado css basics okay ka ugu dambeeyo baa course bilaa magaca laakiin mid walba hadda wuxuu wataa property la dhaho title oo aynu usoo baas kareynay waayahay kuma eegaan kartid inaad usoo baas karaysid hal property magaceed iyo string kaliya ama xuruuf waxaa usoo baas kareyn kartaa boolean iyo objects so waxaan leenahay price oo 10 sidoo kale waxaan u baas kareyn karnaa is new oo true ama false waa boolean sidoo kale waxaa u baas kareyn kartaa array of objects hataa function ayaad u baas kareyn kartaa kuwan sidee marka usoo bandhigi karnaa
waxaan usoo bandhigi karnaa maadaama in halkan trailerkii soo bandhignay xaggan hoose waxaan keeni karnaa division ka kooban 2 paragraph. Paragraphka ugu hore wuxuu soo bandhigayaa provis dot is new, kan kalena wuxuu soo bandhigayaa provis dot price. Okay, weliba is new noo soo bixi mayso sababtoo ah waa boolean, waxaan u baahnay inaan conditional rendering ku sameyno soo haddaynu save garayno price-kii uu soo baxay laakiin is new nooma soo bixin. So is new waxaan leenahay is new haddii aad heshid question mark soo bandhig waxaa taada new, haddii kalena empty string ka dhig. So haddeer halka waxaa kasoo baxaysa kuwa newda new ayaa kasoo baxaysa, laakiin tan oo kale waxaan ku bedelan karnaa ternary operatorska inaan dhahno haddii value-ga bidixda xiga uu true yahay marka waxaan leenahay aan new soo bandhig. So safe haddaan dhahno waa same. tan laakiin waxay kaga duwan tahay weeye haddii dhinacan value-ga bidixda xiga uusan true ahayn ama aysan waxba ku jirin anta la soo bandhig, marka saasay ku kala duwan yihiin, midna waa or midna waa aan. Okay, laakiin waxaa isticmaali kartaa if else statement iyo ternary operators. xoogaa yaroo style aynu u baahannahay inaynu ku darno. tan oo kale waxaanu ku darsan karnaa inline style sheet. So waxaan leenahay color gray ka dhig nice, kana waxaan raacin karnaa style inline style sheet, haddii kalena class name raaci, colorkiisa waxaan ka dhiganaa yellow, price-ka waxaan ka dhiganaa okay waa isdamari sorry, kan waxaan ka dhiganaa gray, kan waxaan ka dhigi karnaa yellow, ff0 bas ka dheh. sidoo kale xoogaa yaroo style haddaa u baahantahay class, kan class name ayaan raacin karnaa, haddaa css ka taqaanin inta dambe waa iskaga tegi kartaa chorus info, kadibna chorus infodan waxaan leenahay display flex say isu dhinac yaalaan, kadibna waxaan leenahay justify content between space between safe nice. chorus-kana css maaha laakiin waa ku yara daraynaa. halkan waxaan leenahay price yes. insha allah casharka ku xiga waxaynu ku qaadan doonaa structuring oo proviskan qaabkan u qornay qaab ka duwan inaynu qori karno. waxyaabahan barana waxaa ka mid ah component-ga marka initialize garaysid aad raacin kartid attribute la dhaho any attribute raacin kartid. attribute-kaas waxay noqon kartaa string, array of objects, waxay noqon kartaa boolean. markaad doonaysid inaad proviska attribute-kan aad u baas garaysa dhex geshidna parameter ahaan ayaa ugu soo daraysaa. parameterskaas oo object ah ayaad u yeedhaysaa properties-ka uu xambaarsan yahay. marka aad iyo aad ayay u mahadsantihiin, wabillaahi tawfiiq.